الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وجلسدي أما عشركي سديدية طبناد كتاب كني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بإذن الله تبارك وتعالى موتك أي جيريدا كهذا الله جيريدا وحر راعى صدح مصيبة وواوين ربي باكوت المامن فأصابتكم مصيبة الموت جيريدو ومصيبة saddexdaa musiibo ee waaweyn mid waa sakaraatulmowtka sakaraatulmowtka waxyaabaha kuu cadayn waa mashaahida iyo markaad aragto dadka lagu soo xaadiro ee naftu ay ka baxayso iyo akhbaartooda iyo warkooda laynoo soo guuriyey iyo rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam wixii uu la kulmay oo sakaraatulmowt ahaa. caaisha radiallahu canha baa waxay leedahay rasuulka sala allahu alay wasalam hortiisa waxaa yeelay weel biyo ay ku jiraan, gacantuu gelinayay kadib buu wejiga ku masaxayay intuu saa isaga mariyo yuu odhan jiray laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat, walle geerida sakaraad bay leedahay. rasuulkii alla weeye qofka sidaa u xanuunsanayay oo sakaraadkaasi uu hayay. ariiquuni sabca qilab laha igu daadiya 7 ashuun oo biyaa dusha iiga shuba dhahay, marka walbana sidaas intuu la miir dabalo sooto indhaha hal mar soo kala qaaday. kadib ugu dambeyntii rasuulku gacantiisa intuu kor u taagay ayaa wuxuu yihi fi rafiiqi alaclaa, waa markii ay ka baxaysay naftu ay ka baxaysay. yani rafiiqi alaclaa waa jamaacada sare, waa ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa. kadibna nafta ayaa ka baxday rasuulka sala allahu alay wasalam, gacantiisiina hal mar bay dhulka ku dhacday, saasay u taagneyd markay naftu ka baxday dhulka ayaa hal mar ku dhacday. caaisha waxay tiri radia allahu canha falaa akrahu shidat almowti liaxadin bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam, haddiiba aan ogahay tire sakaraadka rasuulka qabtay iyo dhibaatada la mariyey qof kale oo binu aadama shidat almowt geeri sakaraad adaygiisa uba nici maayo. bimacnaa waxa weeye mar haddii rasuulka halkaa la mariyey haddee iska daaweeyo qof kale iyo waxa ku dhaco waxaweye geeridu ama sakaraadku waa adag yahay ama ma adka ma fulaan maba taa ka hadli mahaya bay tiri. arrinta labaad oo musiibada ah waa ru'yatu malakulmowt, waa malakulmowtka naftiisa. rabbi wuxuu leeyahay qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun. inagu waxaan dhahnay casraa-iil baa qofkii qaatay iyo casraa-iil baa u yimid iyo waxa saxda ah oo kusoo arooray nusuusta waa malakulmowt. malakulmowt baa marka qofka nafta ka qaadaya oo loo wakaashay, wax loo wakaashay wey. isagu sida xaqiiqada mutawafiga saxda xaqiiqada rabbi baa nafta qaada, laakiin waxaa loo soo adeegsaday malagaana ku shaqala hawsha iyada ah. yaqbidu malakulmowti alruux, naftuu qaadaa kadibna wuxuu u dhiibayaa malaa'ig kale usii dhiibaya, malaa'ikatu raxma, malaa'igta raxmad iyo naxariista hadduu qofku mu'min yahay, ama malaa'ikul cadaab buu u dhiibaya hadduu qofku kaafir yahay. xadiidkii baraa ibnu caazib ayaa aada uga sheekeynaya addoonka kaafirka iyo faajirka ah markii adduunka iyo aakhara meesha ku kala baxaan naftu ay ka baxayso waxaa imaanaya baa samada malaa'ig oo suudul wujuh, wejigoodu uu aada u madow yahay baa qofkaa u imanaya. waa mandar mukhiif ah oo rucbi iyo argagax ku gelinaya. bashar ma aha, waa malaa'ig ilaahay oo wejigoodu madow yahay, kafan oo qalalan oo adag oo jidhka qofka googoynaya bay wataan oo dhibaya. laakiin bixamdillaahi dadkaas waa cusaada iyo dadka kufaarta iyo dadkaas, laakiin mu'miniinta rabbi baa malaa'ig kale oo iyagu waxaa u imaanaya raxmadeed baa u imanaya. arrinta saddexaad ama iyaduna musiibada saddexaadi waa suu-ul khaatima. ilaahay haynaga badbaadiyo, khaatimo xun weeyaan. taasna waa qofka faajirka ah iyo naarta in loogu bishaaraynayo. suu-ul khaatima waa midda dadka caarifiinta wanaagsan qalbigooda wax badan murjisa, waa midda xaalada sakaraatulmowtka ay qof walba uu ilaahay subxaana uu ka magangelaya markuu nool yahay. suu-ul khaatima
waa midda qofka markii uu quwadiisa iyo tabartiisu yar tahay, shaytaanna uu shaqaysanayo sida ibnulqayim uu wax badan ka waramay. Xilliga ugu tabar daran yahay qofka bini aadamka waa xilliga ugu xoog badan yahay shaytaankuna isku dayayana inuu garab mariyo qofku. xilligaa wuxuu la kulmayaa laba bishaara, midkoodun buu la kulmayaa. in la yidhaahdo abshir yaa caduw allahi binnaar, cadowgii ilaahay ou naartii ku bishaarayso, iyo in la yidhaahdo abshir yaa waliy allaahi biljanna, weligii ilaahayow jannada ku bishaarayso. rabbi haynaga dhigo kuwa jannada loogu bishaareeyo. xadiiskii saxiixaynka min xadiidi cabdullahi bni mascuud waa kii aad garanaysaan, oo ina axadakum yujmacu khalquhu, yani xadiiskii arbaciinkii kutubta kaleba ku yiilay, qofka sida loo abuuro caloosha hooyadii inta uu soo maraayo. ugu dambeyn waa kii rasuulku yihi fawallaahi aladii laa ilaaha gayruh, ilaahay baan ku dhaartay uusan rabbi ka macbuud kale jirin, qof walbo idinka mida camal buu samaysan buu yihi, qof idinka midaba camalkii ahlu jannada samayn kadib markii hawshuu soo dhowdahay ayuunbaa kitaabkii kale u sabqayaa, camal ahlu naar isagoo hayaa la arkaya. kii kalena walcagsu saxiix, isaguna waa sidoo kale oo dhinaca kalena. rasuulku wuxuu ka waramay sala allahu caley wasalam xadiis isaguna bukhaari iyo muslim ku sugnaa min xadiis sahl ibnu sacad, in mushrikiinta iyo gaaladu ay mar kulmeen oo dagaal ay isagu hor yimaadeen. nin baa ku jiray oo gaalada dhammeeyey, oo ninku arkaba maaragtay seefta la daba raacayay. markuu dhintayna rasuulku wuxuu yihi ninkaasi waa ahlu naar buu yidhi. balu fiirsada, waa nin saxaabada ku tirsanaa oo gaalada leynayay, dhex ordayay, laakiin markuu dhintay wuxuu yihi waa ahlu naar. waa la yaabay. saxaabi baa yidhi anaa soo ogaanaya ninkan xaaladiisa. wuxuu soo ogaaday ninkani inuu dhaawacmay, markuu dhaawacmayna aada u xanuunsaday, kadibna isagu isdilay oo birtii u watay iyo wuxuu watay seeftii isagu isku dilay. markaasaa wuxuu rasuulku usoo laabtay, yaa rasuulallahi arrintii baan soo ogaaday. kadib uu rasuulku wuxuu yihi ina arajula, balu fiirso, la yacmalu camala ahli ljannati fima yabduu linnaas wahuwa min ahli nnaar. subxaana allah, yacni qofku camalka ahlujannadu samaynaya sida dadka u muuqata wey, isagoo ahlu naara. arrintaas waa xanuun badan tahay, la socda. rajulku haddana wuxuu yihi la yacmalu camala ahli nnaar fima yabduu linnaas wahuwa min ahli janna. qof camalkii sidaa opposite-ka kasoo horjeeda camalkii naarta samayn baa jira sida dadka u muuqata, laakiin waa ahlu janna. inama alacmaalu bilkhawaatiin buu rasulku sal, camalku waa mukhaatimada u dambeysa ayuu wey. marka fima yabduu linnaas, qofkaas munaafiq buu ahaa, islaamku uu muujisanaya inuu yahay qof fiican, laakiin sida saxdaa sidaa ma ahayn, qof fiican ma ahayn. marka taas wuxuu wacdi weyn u yahay xadiidkani dad badan oo maarata ummadeena ku jira. ilaahay subxaana watacaala hayna xifdiyo, qowlkeena iyo ficilkeena hays waafajiyo, oo laga yaaba inay dadka ugu muuqdaan inuu yahay dad fiican, laakiin aan dad fiicanayn. ilaahay og yahay inayna dad fiican ahayn. ilaahay hayna xifdiyo. wajazaakum allahu khayr, wbaaraka allah fiikum.